halkani waa Baanbaxlimo oo ay dad iyo dunyo badani ku haysatay biyo la'aan. Hay'adda Al-Raxma ayaa waxa ay halkaasi ka bilowday ceel biyood noociisu yahay riig oo ay dhaqaalihiisa soo aruurisay Gede Relief Foundation muddo badan oo bulshada Baanbaxlimo ay haysatay biyo la'aan baahsan. markani waxa ay la jaan qaadayaan deegaanada ay Al-Raxma horay uga qoday ceelasha isla markaana ay biyuhu burqanayaan. waxaana ceelkani uu noqon doonaa ceelkii lixaad oo mu'asasada Al-Raxma ay ka hirgeliso gobolka Gedo. mahad eebbe ka sokow waxa ay dadka deegaanka u mahad celiyeen dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruuca qodista ceelka Baanbaxlimo. ilaahaygi waxaan ku mahadinaynaa oonka naga saaray ayaan ku mahadinaynaa islaamnimada iyo iimaanka nagu manaystay. waxaan Allah ku shukrinaynaa allihii oonkiina hayay macnaha biyo mustafica oo na anfaca ayaan ku mahadinaynaa ku shukrinaynaa oonkii asaga oo yaalay Baanbaxlimo qaryada tan dad iyo dunyaba ay macnaha u liiteen oo macnaha hadda intaas oo macnaha 3 sano macnaha adooday dadkii asaga ahaa inuu ka qaxay xoolihii oo dhan ay ka dhaqaaqeen maantana ilaahay wadi uu ka dilaacay. ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa horta taas ilaahay mahad waay. alxamdulillah rabbil caalamiin. hay'adda asaasan la yiraahdo Raxma ayaduna khayr Allah siiyo waadiyadana waan u ducaynaynaa hay'addaas wax walba sabab ay leeyihiin cadaalad si wanaagsan oo cadaalada u shaqaysay si wanaagsan oo mustafica ceelkii dad anfaca bulsho anfaca qoday ayadana khayr Allah siiyo waan u ducaynaynaa ilaahu naga aqbal. meesha waa mujtamac Baanbaxlimo meesha joogo isma ilaahay ceelka noo bujiyay yaa ilaahay baan ku mahadinaynaa qaasatan Al-Raxmo intii kharash bixisay iyo intii cod ka geysatay iyo intii khalkhaale ka geysatay insha Allah ilaahay idinku liibaan baan ku ognahay waa u ducaynaynaa ilaa meeshaan oo badan baan ka soo marnay aniga hadda hadlay ariga 8 bari buu qaday 8 bari ka qadina ma jirto marka alxamdulillah maanta ceel il burqanayso iyo biyaha dhex joogna ilaahay baa ku mahadsan oo ku mahadinaynaa intii noo qalqaalisay intii macnaha kharashka bixisiba rag iyo dumarba waa u ducaynaynaa ilaahay kor ha ka dhig ilaahay ha kaalmeeyo kharashkooda Allah ha badiyo lacagtooda Allah ha badiyo xoogooda Allah ha ku daawada ka dhigo maskaxdooda maskax bay ku keeneen maskax saafi Allah ka dhigo ilaahay idimkii ilaahay baan ku mahadinay nimanka macnaha hawsha noo qabtayna waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadaas ilaahay baa iska leh ilaahay waxaan ka rajaynaynaa biyahaas ay noo ceelkaas naloo qoday ilaahay uu daawo nooga dhigo oo kuwii maartay ku barbaaro oo ku libaana ilaahay uu naga dhigo kuwii daacada ku hanuuno oo ku cibaadaysana Allah naga dhigo nimankaas dhammaanna waxaan u ducaynaynaa wax nool iyo wax mootanba waa u ducaynaynaa wixii mootana Allah u naxariisto wixii noolna Allah u dambi dhaafo. ilaahay baa mahad iyo shukri leh ceelka nimankii noo qoday waa mahadinaynaa haddii alla ku idmaayo intii soo qalqaalisayna waa mahadinaynaa oo lacagtii lagu qoday ay bixisay kulligood mataqaanaa miisaankooda Allah ku kabo miisaankooda san Allah ku kabo ilaahay idankii miisaankooda san Allah ku kabo Allah u shafeeco adduun iyo aakhiraba Allah u gargaaro adduun iyo aakhiraba Allah u gargaaro annagana bacdigeed motorka daawo Allah nooga dhigo biyaha daawo Allah nooga dhigo haddii alla ku idmaayo kuwii ma taqaanaa maslaxad meesha ku hela Allah nooga dhigo waxa kaleeto motorkan dadkan shacabka oo arada degan baa loo keenay ma ka xigsanayno deegaanka kama xigsanayno dadkan muslimka oo meeshan degan oo Soomaalida loo keena kama xigsanayno waxa lagu xuma taqaanaa taageeri karo uu taageeri waana ku taageeraynaa il waxay arkaysa weeye ugubsaan ha loo arooso yiri in aad noo qodeen oo biyo usga taalahayo oo ka gor biyo gataalahayaan arkaynaa yaan arkaynaa in mataqaanaa yani kax banaandhigaha laga bixiyo oo haddii alla ku idmaayo loo dhamaasho tirana waa rabnaa intii noo dhamaasho tirayso dambe iyo intii noo qadayna waa mahadine waa mahad baan u celinaynaa waxaan rabnaa maanta inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celino nimcada uu na siiyey oo ceelkan ah waxaan ognahay dhammaan deegaanada
meeshan waxay ka mid ahayd abaaraha waddanka hadda Soomaaliya aad u hareeyay lagu oomi jiray aad baa loogu rafaaday waqtiyada dambe laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mataqaanaa nimcadiisan ku helna mataceel waxaan rabnaa marka labaad inaan u mahad celino dhammaan dadkii muslimiinta oo ka soo qayb qaatay ceelkan oo bixiyay oo u shaqeeyay oo waliba annaga aan ognahay ayagoo aan arkaynay ka shaqeynayo oo kartoomo wato waliba gabdho u badan gabdhahaas waxaan rabnaa inaan u mahad celino khayr badan Allah siiyo dhammaan dadka odayaasha ah iyo deegaankana waa mataqaanaa waan gaarsiinay xogta way og yihiin meel walbana waa idinkaga ducaynayaa marka sidoo kale al-rahma mataqaanaa ceelasha qodo amaano mataqaanaa u soo dhiibteen inay amaanadii gudatay si wanaagsan ay u gudatay ceelkii meeshii loogu talagalay oo mataqaanaa in laga qoday meeshan baanbaxalima ay tahay aan taaganahay ceelkaasna mataqaanaa maanta uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadda uu daaran yahay qofka sadaqa jaariya oo mataqaanaa waligeed jirayso qofkii mataqaanaa ka taga way waxaan u maleynayaa sadaqa jaariyo sadaqatul jaariya maanta ceelkan oo mid meelaha ugu sareysa ka mid tahay u maleynayaa masaajidka iyo ceelkan haddii intuu jiri doono Ilaahay baa garan subhanahu wa ta'ala haddana aad u wanaagsan yahay marka intii ka qayb qaatay waxaad ogaataan oo qalbigiina mataqaanaa rabnaa inaan ku adkayno in aad maanta wax walba meeshii ugu wanaagsanaa aad lacagta geysateen amaanadii iyo mataqaanaa al-rahmana ay si wanaagsan u gudatay oo meeshaan ka hadlayna ay tahay baanbaxalimo ceelkan meeshii mataqaanaa odayaasha ay taagan yihiin sida ayadaa weeyo waxaan u mahad celinayaa tiimkii qoday ceelka ninka la yiraahdo Cabdullaahi Cagaweyne iyo tiimkiisa waan u mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada ahaa Umar Cabdiraxmaan baan u mahad celinaynaa al-rahma ka socdo oo meeshaan mar walba imaanahayay oo mataqaanaa la socday biyaha lagu raasan jiray $400 $400 inay ku imaan jireen nin haysta iyo nimaan haysaninba nin heli kariyo nimaan heli karinba oo on xitaa loogu baqtiyay ayaan ognahay waxa Ilaahay baa ku mahadsan oonkaas naga bixiyay waxa ku mahadsan ummadii muslimiinta ahayd oo qalqaalisay meeshaan joogna maanta aan taagan ceelkan ka burqanayo waa baanbaxalimo dadka intii hadda degan iyo intii muslimiinana waa ogtahay oonka iyo waxaan ka soo marnay ma hadda horta Ilaahay bay u sugan tahay Ilaahayga ceelkan noo keenay biyaha noo keenay nimcada noo keenay yaan ku mahadinaynaa ثم بعديد waxaan ku mahadinaynaa inta soo qalqaashay ama ficil ama hadal ama dhaqaale ku darsatay yaan ku mahadinaynaa Ilaahay khayr ha siiyo miisaankooda xasanaadka Allah ugu kabo sidii duqowga hore ay mareen ceelkan ceel Soomaali weeyo Soomaali kama lihin waxa weeye ceel Soomaali weeyo ceelasha Soomaalida loo qodo way wada cabaan waa matoor weeye waa qofna lagama leh asagana ceel biyo leh oo dadka anfaco يا إلهي كرجينا وونا يا هي عمر عبد الرحمن شيخ حفيظ كورفان فيتا مؤسسة الرحمة قبل كجذو بامبحليمو